بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو كان waxaa ka hadlaa dhiikar. waxaa idin tusaa video oo wax soo saareen xarunta xakameynta iyo ka hortagga cudurrada oo Mareykanka. It's a beautiful fall evening. The sun is setting. The dog finally stopped barking. Life is good. But inside, there's trouble brewing. marka cidan idin tusooyaan waxa waaye cid iska degan waaye wax kasta inay iska fiican yihiin u malaayaan laakiin problem oo soo socdo ayagana ma ogo. And Emma has no idea. Although she feels fine, like her father, Emma is sida aabaheed oo kale waxay u malaysaa inay waxba ka qaldaneen. hypertension. Mareykankana waxaa 67 milyan qof qabta dhiikar. Just like her radiator that's on the fritz, Emma's heart is working overtime to get the job done. Let's have a look. marka tusaale ahaan waxay kasoo qabteen mashiinkan oo gurigooda ku jiro waxa waaye bambo oo waxa socodsiinayso qaaca iyo wixii oo guriga hawada oo guriga ku jirto. marka sida mashiinkan oo kale wadnaheeda aad u shaqeynaya maadaama ay dhiikar ay qabto. The heart is the pump in our bodies, delivering blood to the entire system through a set of pipes or blood vessels of all sizes. marka wadnaha waxay ku mataleen bambkaas oo wax socodsiinayo dhiiga. xididadana waxa waaye tubooyinkaas waaye oo waxa ku socodsiinayo qaaca mashiinkaas. Smoking, high cholesterol, diabetes, obesity, physical inactivity, family. marka sakareedka, kolestaroolka, dhiikarka iyo qofka xataa hadduu familkiisa hadduu ku jiro reerkiisa qof aabihiisa oo kale camal dhiikar qabo amba hooyadiisa dhiikar qabtay taas xataa waxay u keenaya inuu halis u yahay dhiikar inuu ku dhaco. iyo qofka da'diisa markuu weynaado xataa waxaa halis wuxuu u yahay dhiikar inuu ku dhaco. History and increased age all contribute to these blood vessels or our pipes becoming less elastic. The more blood our heart has to pump through stiff, narrowing arteries, the higher our blood pressure. marka markuu pressureka markuu ku bato oo qofka dhiikar markuu qabiyo xididada way adkaanayaan. xididada koogar waxa camal waa elastig camal waaye xoogaa way dabacsan yihiin laakiin marka oo qofka dhiikar oo ku dhaco pressurekaas badan waxa xididada u adkeena. markaas hadhooti wadnihii inuu aad u shaqeeyo waaye wadnahana muruquu ka samaysan yahay marka qofka problemyaal kale uu keeni karaa. The force of the blood against our artery walls is too high. Life-threatening health problems can result. Problems like kidney disease, heart disease, stroke, even heart attack. marka qofka markuu dhiikar oo qabiyo problemyaasha uu imaan karo waxaa ka mid ah cudurrada kelyaha, cudurrada wadnaha, stroke waxa waaye marka xididada oo maskaxda ku jiro xataa dhaawac u gaarsiin karaa. iyo heart attackna waxa waaye qofka markuu xidid oo ka xirmo amba xididka markuu ka yaraado xididka wadnaha oo ku jiro markuu yaraado hadhowtiin wadnaha dhiig fiican ma helayo. marka videogan wuxuu na tusaa qof oo iska fiican oo u malaynaynin problem inuu kusoo socdo oo hadhowtii problemyaal badan oo imaan karaan cudurrada wadnaha, kelyaha, maskaxda. taasna waxaa keenaya dhiikarka. sida sokorowga oo kale camal waxa waaye cudur xun waaye laakiin wuxuu uga duwan yahay dadka badan ama dareemayaan inuu dhiigooda oo aad u kacsan yahay ilaa marka problem ooga imaado ama dhakhtarka haddii aadaan waxaa lagu sheegaa inuu dhiikar inuu qabiyo. dhiikarka waxaa lagu garanaa qofka markuu blood pressurekiisa ama dhiig marka laga cabiro numberka kore markuu ka badan yahay 120 numberka hoosena markuu 80 ka badan yahay. qofku waxaa dhici karta inuuna u baahnayn daawo ilaa numberka kore oo uga dhawaado 140 numberka hoosena ilaa 90 oo uga dhawaado. hadda waxaa ku dadaalnaa dadka dhiikar qabay in nambaradooda numberka kore 140 ka yaraado numberka hoosena 90 ka yaraado. marmar waa isbedelaya recommendationka dad waxaa jiro oo u baahan inuu dhiigooda kasii yaraado
numberkaas oo waxaa 130 ka yaraada numberka weyn numberka koro numberka hoosena 80 ka yaraado marka qof walba xoogaa waa kala duwan yahay laakiin badanaa dadka dhiigkarka waa laga daaweyn karaa daawooyin badanaa jiro oo lagu qori karo qofka waxaa idin tali lahay in qofka hadduu dhiigkar oo qabiyo amba waxyaalaha uu keeni karo oo halis ku yahay dhiigkar inuu ku imaado inuu dhakhtarkiisa aado oo ula tashto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.